السلام عليكم. فيروسك شيناه كدلاعي كورونا. In China, health officials have announced they expect to see the coronavirus outbreak intensify. saddex magaalo ku yaala dalka Shiinaha ayaa mas'uuliyiintu go'doomiyeen si la isugu dayo in la xakameeyo fidista fayraska dhimashada leh ee coronavirus. China's capital has announced that it's cancelling all major public events for Lunar New Year as the country tries to stop the spread of a new virus. فيروس التهاب رئوي ناشئ في مدينة ووخان وسط الصين يزعج استعدادات الصينيين لاستقبال السنة القمرية الجديدة. dhammaan garoomada diyaaradaha kala duwan ee caalamka waxaa taagan kumanaan shaqaale ahoo sugayo rakaabka ka imaanaya Shiinaha si looga hortago faafidda fayruskan dilaaga ka dilaacay dalka Shiinaha. waxaana yar waqtigan dadka Shiinaha u safraayo taasoo u muuqato in Shiinuhu uu go'doon saaran yahay. ilaa hadda 106 qof ayaa u dhimatay fayruskan halista ee bartamaha dalka Shiinaha ka dilaacay. waxaa la diiwaan geliyay kumanaan qof oo jirkooda ku jiro fayruskan. 4500 dad ka badan ayuu marayay shalay dadka sida tooska looga helay fayruskan. cudurku wuxuu ka dilaacay gobolka Hubei bartamaha Shiinaha, gaar ahaan magaalada ugu weyn gobolka ee Wuhan, taasoo keentay in bandow lagu soo rogo magaalada iyo gobolka si guud ahaaneed. dadkana la amray in ay xirtaan daaqadaha guryahan ay ka soo bixin. dadkana waxaa lagu amray inaysan guryaha ka soo bixin, dhammaan daaqadaha iyo albaabada xirtaan. muddo hadda 24 saac kasii badanayso ilaa iyo 36 saac kusii dhow. dadku socodkooda waa yaraaday, bannaankana cidna uma soo bixi karto. qofkii bannaanka u soo baxana waxaa lagu amray inuu soo xirto afka inuu daboosho. 56 milyan oo qof ayaa ku go'doonsan loona ogolayn in ay ka baxaan gobolka, waxaana ka mid arday wadamo badan ka soo kala jeedo oo ay ka mid yihiin arday Soomaali ah. waan gartood mahadsantahay. jaamac waxaad iga warantaa Soomaalida intee lag baa degan Wuhan iyo gobolkaasba magaciisa aad ii sheegisay, xaaladooda ma ka warhaysaa? Soomaalida xaaladeedu waa sidee meesha degan? والله horta Soomaalida ardayda gobolka arday baa badan, ardayda joogtana inta badan baa Soomaalida aad bay ugu badan tahay. wadamo badan oo caalamka ayuu gaaray fayruskan, inkastoo 1 qof laga diiwaan geliyay wadamada sida Japan, Koonfurta Korea, Vietnam, Singapore, Australia, Mareykanka, Thailand, Nepal iyo Faransiiska. dhibaatada ugu daran ayaa ah in fayrusku marka uu jirka qofka galo uu 14 maalin ku jiraayo, la ogaan karinna in uu qabo qofkan cudurkaas, laakiin uu sii gudbin karo. lama ogaan karo laakiin uu gudbin karaa, waana arrinka argagaxa leh, taasoo keentay dad cudurka laga waayay laakiin qabo ay gaarsiiyeen dad kale. maadaama cudurka aanan la ogaan karin ilaa 14 maalin ay ka soo wareegato markii qofka jirkiisa u galay. waa fayrus dilaa ah caalamka oo dhan argagax iyo walwal geliyay. bani aadamka cudurro ka duwan kan xoolaha ayaa ku dhaco, xoolahana sidoo kale cudur iyo fayruusaad ka duwan kan bani aadamka ayaa ku dhaco. fadliga Ilaahay isuma gudbin karaan markii xaalado kooban laga reebo. qof bani aadama cudur kuma ridan karo xoolaha kala duwan, laakiin waxaa jiro noocyo gooni ah oo hargebyada ka mid ah oo xooluhu ay dadka u gudbiyaan, sida hargebkii shimbiraha ee ka dilaacay koonfur bari Aasiya, kii doofaarka ee ka dilaacay Mexico. arrinka mucjisada ayaa ah in haddii cudur ama fayrus ku dhaco xoolaha uu bini aadamka u gudbo, isu bedelayo ama noqonayo daacuun lagu hoobto. sida ay leeyihiin culimada caafimaadka, wuxuu yeelan marka uu galo jirka bani aadamka awood kale, adkaanaysana in daawo loo helo. hargabka xoolaha markuu ku dhaco dadka wuxuu isu bedeli fayrus halis ah, awood dheeraad ana leh, dadkuna ku hoobtaan. waa sida noolaha gorilahoo kale, meelaha lagu hayo lagu xareeyo waxaa laga ilaaliyaa in uu booqdo ama tago ama u dhowaado qof hargab qabo, sababtoo ah hargabkan caadigaan la soconno ee nagu dhaco inta badan haddii aan u gudbino gorilahaas heer wuxuu gaarayaa uu u dhinto. waa arrin cajiib ah in hargabkan nagu dhacay caadiga haddaan u gudbino gorilaha ama uu aad u xanuunsanayo ama xitaa uu geeriyoonayo. cudurkan corona asalka wuxuu ka imaaday xoolaha iyo dugaaga kala duwan. 1918 ilaa 1919
waxaa caalamka ku dhuftay fayruus loogu magacdaray musiibadii weyneyd ama hargabkii Spain waana nooca H1N1 ee xoolaha iyo dadku isu gudbiyaan wuxuu ahaa halaag wadareed lagu hoobtay oo ku dhuftay inta badan wadamada caalamka kadib dhamaanshihii dagaalkii koobaad ee adduunka reebay malaayiinta geerida macluusha wasaqda meydadka meel walba daadsan gaar ahaan Yurub arrinkan ayaa keenay in fayruuskaas uu ku dhaco 500 milyan oo qof daafaha caalamka ayna u dhinteen 50 ilaa 100 milyan oo qof inta u dhaxayso taasoo ah dadka ku hoobtay fayruuskaas ay ka badan yihiin malaayiintii ku roogmay dagaalkii koobaad ee adduunka fayruuskan shiinaha ka dilaacay waa mid asalka xayawaanaadka kale ka imaaday kadibna u sii gudbiyey bani aadamka waa fayruus koobaaban dushana uga meegaaran tahay xalqad borotiin ah wuxuuna u egyahay xalaqada ku meegaaran qorraxda waa marka dabcan weynayaha lagu arko wuxuuna ku gudbaa dhinaca hawada dhacaanka qofka ka soo baxayo taabashada waxaana ka dhalanayo qandho dhibaato dhinaca neefsashada ah qufac xanuun dhinaca xabadka ah ciriiri neefsashada ilaa uu qofku ka geeriyoodo sida ay xukuumadda Shiinaha leedahay cudurku wuxuu ka bilowday suuqa kalluunka iyo hilibka maadaama asal ahaan cudurkan uu xoolaha ka soo jeedo iyo noolayaasha kala duwan waxaa xusid mudan in Shiineysku cunaan noolayaasha Ilaahay xarimay sida doofaarka mukulaalaha iyo noocyo badan oo aanan halkan lagu soo koobi karin arrinku waa in wax kastoo dhaqaaqa ay cunaan dabcan waxaana ka dhalanaya cudurro kala duwan bariga dhexe sida ay sheegtay wakaaladda Reuters hal qof ayaa laga helay dalka Sacuudiga laakiin xukuumadda Sacuudiga way beenisay arrinkan halka wasiirka arrimaha dibadda Hindiya uu sheegay in muwaadinad Hindi ah oo ku sugan mandiqada casiir ee Sacuudiga uu ku dhacay cudurkan kana shaqeynaysa isbitaal kalkaalisa ahaan haddana ay taallo ayadoo cudurka laga daaweynayo isbitaal ku yaala deegaanka casiir ee Sacuudiga xukuumadda Shiinaha waxay leedahay arrinku faraha ayuu ka baxay waanan xakamayn la'nahay cudurkan sida la qiyaasayo faalooyinka ay leeyihiin bisha labaad ee maalmo kadib bilaaban doonto in cudurku uu sii faafi doono in bishaas gudaheeda uu gaari doono dadka uu ku dhacayo cudurkaas 190,000 oo qof hadda wuxuu marayaa 4,000 iyo wax yar in 190,000 oo qof uu gaari doono bishan labaad ee soo socoto waxay Ilaahay ka baryaynaa inuunan soo gaarin fayruskan aad halista u ah wadamo badan oo caalamka ayaa muwaadiniintooda uga digayo in ay u safraan dalka Shiinaha khatartan dalka ka jirta awgeed sidaas darteed cid kasta oo mas'uuliyad hayso waxaan ka codsanaynaa sidoo kale in ay mas'uuliyad iska saaraan cudurkan halista ee Shiinaha ka dilaacay mujtamaceen xaaladeeda maanta waan la soconaa sida uu yahay adag tahayna Ilaahay ma qadaree haddii cudurkan uu dalka soo galo in xaalad aad u xun ay ka dhalanayso waxaan Ilaahay ka baryaynaa in uu naga badbaadiyo musiibadan ka dilaacday dalka Shiinaha mawduucina maanta intaan ayuu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh